si uu heshiis u yimaado ama uu dhamaado dagaalka bariga dhexe waa in la helaa guuleyste iyo guul dareyste sidaas waxa qaba khibradlayaasha sare ee colaadda bariga dhexe gaar ahaan Elijah Magner oo Al Jazeera u sheegay in wada hadal bilowda ama joogsi xilligan laga rajeeyo dagaalka ka dhanka ah Iran uusan ahayn mid waafaqaya waaqica dagaalada caynkan ah kuwa oo aan dhamaadkooda la rajeyn ila la gaaro hadafka qaraari ah in la helo cid guul sheegata iyo garab kale oo guul darrada dood la'aan aqbala maanta oo gulufka Iran ka dhanahay ay wadaan Mareykanka iyo Israa'iil oo isku garab ah u galay maalintiisii 27 saacado la tirin karaan oo uga dhiman yihiin inuu biljirsado waxa miiska saaran laba doodood oo si qayaxan isu khilaafsan dooda Washington oo laga sheegayo warkan yaayirada leh ee ah in wada hadal loo socdaan waaga dagaalkuna uu dhamaad joogo iyo Tahraanta Iran oo ku adkaysanaysa inaysan cidna wada hadal kula jirin joojinta dagaalkuna uusan xitaa tirsiga dhow ugu jirin taasoo tusaysa kaafiye kala dheeri aan sinaba u kaalmaynayn walaaca laga qabo dhibaatada dhaqaale iyo xasilooniyeed ee uu dunida gaarsiin karo dagaalkan goor horeba sida daran u curyaamiyay suuqyadii tamarta iyo shidaalka kuwii maciishada ilihii dhaqaalaha khaliijka iyo xitaa isu socodkii haweed iyo badeed ee dunida Elijah ayaa yiri inaan wada hadallo dhici karin xalna u keeni karin waaqica maanta waxa ay la mid tahay isla sidii dhacday bishii Juun ee dagaalkii 12 maalmood oo ay isxigeen duqeyntii Mareykanka iyo wicitaankii telefoon ee dagaalka lagu joojiyay xagasha uu khabiirkan ee dagaalka ka eegay waa mid si waaqic ah u cabiraysa halka la kala taagan yahay booska cid walba hadda ka joogto dhamaadka dagaalka iyo xalka ugu dhow waxa uu noqon karo taas oo ah guul uu tirsado daraf oo dhinacyada kamid ah midda Washington xaaladda ku sii cakiraysa ayaana ah in dad badan ay qabaan in Tehran haatan gacanta sare ee dagaalka leedahay maadaama uu Hormuz wali u xiran yahay duqeynteeda Israa'iil iyo Khaliijka ay sii wado wali ay saldhigyada Mareykanka dhibaateyn karto kordhinteeda culaysyada dhaqaalaha duniduna uu siinayo mustawa adag oo ay ku gorgortami karto Mareykanka ayaa haysta laba doorasho oo kala ah in ciidamo lagu wajaho guulka raadinta Iran qabsashada ilaha dhaqaalaha dalka sida jasiiradda Kakna waxa ay noqon kartaa bartilmaameed la odorosi karo sida falanqeeyayaashu qabaan ha ahaatee Iran waxay si hubantile ugu adkaysanaysaa inay isdifaaci karto waxa inta dheer in goor horeba la warinayo in ciidamada ilaalada kacaanku xoojiyeen difaacyada jasiiradaha muhiimka u ah dhaqaalaha wadanka ee Kak ugu horeyso halka khubaradu ka digayaan dagaal jasiiradan lagu galo oo noqon kara mid aan la hubin waxa natiijadiisu noqon doonto ilaa inta uu socon karo iyo wajiga uu u yeeli karo xiisadan walaaceedu maalinba tan xigta sii xoogeysanayo difaacyada badeed biri iyo cireed ee jasiiradda Kak ayaa lagu warramay in ilaalada kacaanku laba jibaareen taasoo ka dhigan in Iran wax walba u huri doonto difaaca xarunta la wariyo in 90% dhoofka shidaalka Iran iyada ka yimaado in Mareykanku qabsado jasiiradan ayaa ka dhignaan karta curyaamin dhaqaale oo Iran ka dhana dagaalka oo si rasmi ah uga bilowda gudaha dalkaas iyo difaaca furimaha Iran ee cirka u badan oo qaybsama taasoo fursad hor leh u abuuri karta weerarada Mareykanka iyo Israa'iil waana tan mid la wariyay inay Iran si adag uga gaashaamanayso Donald Trump madaxweynaha Mareykanku waxa uu doc kale sii wada hadaladiisa iskhilaafaya ee quseeyo wada xajoodyada uu sheegay inuu kula jiro Tehran waxa uu xalay dambeysiyay in hoggaanka Iran aqbaleen wada xajood balse haddii ay taas cadaystaan ay ka baqayaan in kacdoono gudaha ahi oogsadaan hadalkani waxa uu doc ahaan muujinaya in rayadka Iran iyo hoggaankoodu haatan qadiyada dagaalka hal doc ka wada taagan yihiin taas oo ah inay dagaal isku difaacaan isla maanta waxa halkooda ka sii socda weerarada huwanta ee gudaha Iran doc kalena madaafiicda ballistiga ah ee Iran waxa la wariyay in raadkoodu gaaray bartamaha iyo waqooyiga dhulka uu maamulo nidaamka Israa'iil